waxaan aaminsanahay meesha maanta aan joogno Soomaaliya inay marayso meeshii ay ugu rajada fiicnayd sababtu ma ahan rajada aan arko in madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Khayre ay wada shaqeeyaan sababtu ma aha inay adduunyadu naaqbashay oo aan aaminsanahay in dhaqaalaheenu uu kobci doono sababtu ma aha in annaga iyo dawlad goboleedyadu aan ka wada shaqeyn doono nidaam siyaasadeed oo loo dhan yahay sababtu ma aha inaan ciidan dhisi doono sababta aanu aaminsanahay Soomaaliya inay rajo leedahay waxa ay tahay dadkii Soomaaliyeed aan ku arkay aeroboortka Garowe markaan halkan sababta aanu aaminsanahay Soomaaliya inay rajo leedahay waa markii aan arkay aniga madaxweyne Cabdiweli oo isgarab fadhina oo labadeenu ka shaqeynayna inaan dhageysano golaha wasiirada dawlad goboleedka Puntland iyo kan dawladda federaalka oo ay kulligeed isu marxabeynayaan oo leeyihiin Soomaalinimo ayaan ka wada shaqeynaynaa sababtaan rajo warkaayo caawo waxay tahay fariintii uu noo dhiibay islaamkii halkan ka hadlay oo yiri naga geey midnimo iyo Soomaalinimo rabnaa sababtaan u dareemayo rajo waxay tahay wiilashii iyo gabdhihii maalmo taagnaay qardho oo annaga na sugayay ma aha jacayl aniga ay qabaan laakiin waa jacayl ay u qabaan mustaqbalka Soomaaliyeed iyo dawladnimo sababtaan u aaminsanahay inay Soomaaliya rajo leedahay waa markii aan ka soo laabtay qardho habeen ku dhawaad 4 saac 5 saac dadkii Soomaaliyeed ee taagnaa tuulada yarta oo la yiraahdo Shira Dhogor Libax ama taagnaa Xaaji Khayr ama habeen 5 saac taagnaa meesha la yiraahdo Dongoroyo oo sacbinayay iyadoo mugdi ah si ay u sugaan ra'iisul wasaare Soomaaliyeed oo aanay weligood maqal ama dawlad Soomaaliyeed oo xamar ka dhisan oo aanay weligood arkin sababtaan rajada u qabo in Soomaaliya ay hagaagi rabto waxay tahay wiilashii iyo gabdhihii Soomaaliyeed oo aan kula hadlay jaamacadda halkan aan taagana wiilashii iyo gabdhihii Soomaaliyeed aan kula hadlay jaamacadda East Africa wiilashii iyo gabdhihii aan kula soo qaxweeyay maqaayadaha Garowe iyo dhalinyaradii aan ugu tagay sportiga hal qof oo aanan ku arkin ma jirin indha farxad leh hal qof oo aan igu soo dhaweyn ma arag qalbi wanaag hal qof oo aan dhihin ma jiro ra'iisul wasaare waxaan rabnaa Soomaaliya sharaf iyo karaamad leh xoogna leh sababta aan u aaminsanahay Soomaaliya inay hagaagtay waa wiilkii qoraga wato halkan ku heesay oo dhaaranayay inuu Soomaaliya difaaco isagoon wax badan haysan laakiin aaminsan inuu dhigiisa ku bixiyo Soomaaliya inay wax noqoto waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed meel walba oo jeegtaan qabyaaladii way nagu filnaa weysay gobol gobol wuu nagu filnaa waayay dan gaar ah inaan ka shaqeyno waa nagu filnaa weysay isbaaro in la dhigto Soomaaliya hore weydiin weysay nin jeclaysan indhaha laga qabsado Soomaaliya hore waa u dhigi weysay reer Puntland waxaan leeyahay maadaama aad tihiin laf dhabarta dawladnimada hooyadii federaalka su'aashiinu ha ahaato hadda kadib Soomaaliya waa inaan ka shaqeynaa si ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay dhibka uga baxdaan